shirkii horta waa isbedelay haddii alla ku idaano baryahan oo dhan baa ninka la yiraahdo madaxweynihii Puntland iyo Jubbaland waa ku taagnaa shalay warkii aan ka filinay war aan ahayn baa ka yimid waxay yiraahdeen ayagoo dhan isu raacin annagoo dhan uma socon waa ku mahadsanyihiin maadaama ay israaca Soomaaliya halkaan u yimaadeen dadkooda wax la haysaan dawladooda wax la haysaan cadkooda dhacsanayaan Soomaalinimo doonayaan boqolkiiba boqol waa ku mahadsanyihiin xogaa waa ku tarax tagi jiro aanu laftirkayga waxaan islahaa odiga Puntland buu gato malaha Muqdisho ku daray rabaaye waa ka raali gelinaya wixii aan ku tagay madaxweyne Siciid Deni waxa weeye maanta hadalka ka soo yeeray waa hadal ummadda Soomaaliyeed farxad gelinaya maadaama uu leeyahay ayadoo Soomaali midoobin meel uma socdo boqolkiiba boqol waa hadal ummadda Soomaaliyeed qalbigooda farxad gelinaya waxaanu ka doonaynaa waa midnimada Soomaaliya waxaanu ka doonaynaa waa inaad dawladda waxay ku qaldantaad ku qabsato waxaanu ka doonaynaa waa inaad haddii Allah ku idmaayo dalka taladiisa waxaad ku leedahay aad ka dhiibay waad ku mahadsan tahay magaaladii caasimadda Soomaaliyeed ku soo dhawow ayadoo nabad ah ku soo dhawow ayadoo haddii Allah ku idmay horta shaah soo doono adigu mar shaah soo doono staafna soo wadani wadadan dheer ee Makal Mukarrama soo maro horta soo sahmay magaalada cidna ka baqi mayso amniga waa sugan yahay intaana waga gaarsiiye marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne waa mahadsan tahay maadaama aad badbaadada Soomaaliya u timid aadan meel u noqonayn waanu ku taageersanahay waanu ku garab taaganahay korna Allah ka dhigan leeyahay intii hore qadafiyo ku dhacna fallahu amma salafan leeyahay oday yar oo iska hadlaanahay xayraane عارضة waxay ay ku adkaysanayaan in shirka lagu qabto xalane sida xalaba ka dhawaajeen ma kale dowladda federaalkana war waxa soo yeeray dhahaaya in ay bila Soomaaliya ugu baaqayaan in ay yimaadaan maadaama magaalada bay dhex joogaan taasoo khilaaf kale ma abuur wallahi horta xalana waxa ka fiican bila Soomaaliya meel aad adigu leedahay way cid kugu iman karin oo taladaada ka goosanaysa in meel shisheeye waaridiye ka yahay xalana Soomaaliya way ku talaa dhul ahaan laakiin dhaqan ahaan Soomaaliya ka mid ma ahan marka ninka xalana ku shiro wuxuu la mid yahay asagoo UN gudaheeda ku shiro la mid marka anigu waxa ka wacan in Muqdisho bila Soomaaliya lagu shiro meesha waxa ka dhisan Muuryaan ma ahan waa dawlad Soomaaliyeed oo sharci ah mas'uul kasta oo Soomaaliyana amnigiisa iyo sharaftiisa dawladda Soomaaliya wakiil ka ah iyo ciidamada qalabka sidoo haddii Allah ku imayaan cidna la dhalan sida aweed maanta magaalada Muqdisho cid maanta dadka Soomaaliyeed ay ugu baqayaan ma jirto waxaan dhihi lahaa hal yimaado madaxtooyada Soomaaliya anigu taasaan taageersana laakiin mudane madaxweyne maadaama aad u timid inaad dalkan midayso raalli Allah ka noqdaan la yeegan raalli noqdo inta yareeda hore waad mahadsan tahay adoonan midaynin oo meel isu raacayna ka laaban saad ku dhawaaqday salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh shirka maanta lagu muransan yahay in uu Muqdisho ka socdo waxaan aaminsanahay shirkaas haddii maanta lagu qabto fila Soomaaliya lagu qabto sida muxuu ahay farmaajo markuu joogo xilligiisa loogu qaban jiray waxaan aaminsanahay oo Soomaalida aysan wax ajnabi aysan ku dhex jirin in shirkaas wax fiican oo miro dhala ay ka soo bixi doonaan laakiin haddii ay noqoto muxuu ahay labada nin oo hadda yimiday farmaajo waxay ku diidanayeen qabiil ilaa ay hadda intaasoo sanana waxay ku maqnaayeen qabiil kuwa hadda noo joogana hadda waxaan ka maqlaayay muxuu ahay Dr. Cali Sheekh Maxamuud madaxweynaha qaranka ra'iisul wasaarayaasha hore ee wadankana soo maray markay ay shaqada noo hayaan ay muxuu ahay mas'uuliyadda ay noo hayaan Cali Sheekh Maxamuud fadhiga uu kici jiray waa xushmay jiray haddana waa caayayaan wax walba ka sheegayaan ilaa iyo Sheekh Shariif saas ayay nagu hayaan marka waxaan dhihi lahay Soomaalidu wax raqiista iyo qabyaalada iyo muxuu ahay ashqashaadta iska dhaafaano waxaan ogahay hal sheekh maalintii la magacaabay bil mar intuu soo shaqeynin intaas waxa lagu hayay muxuu ahay xumaan iyo quursi iyo muxuu ahay qabweynin nin allaala ninkii madaxda noo noqda haddii aan quursano oon muxuu ahay waqtigiisa aan ku simi weyno waxay noqonaysaa muxuu ahay wax aan muxuu ahay Soomaalideena macno yeelan mayso oo hadda wadankii uu meel fiican buu gaarsiiyay ciidankeena xoogiisu soo celisho maanta adduunyada maanta cadawgana way iska celi karnaa wuxuuna qabateyntoon uga qaada wax adduunka kursiga aan ku leeyahay soo celishay waxaas oo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda muxuu ahay walax raqiis ah iyo quursi iyo qabiil iyo qashin u muuqda marka maba yeelayaan muxuu ahay in muxuu ahay qurux loo fadhiisto ee loo wada hadlay si Soomaalinimo iyo walaalnimo loo hadlo
dadkaanu dad yeelaya aniga ilaa ma aha aniga ilaa waqtigii farmaajo ayaan ogaayey adaa mudan adeer bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah aaqil cumar maxamuud muuse aad iyo aadaan u hambalyaynayaa muxuu booliska soomaaliyeed shaqada ay hayaan oo muxuu dhallinyaradeena inay muxuu xafidaan ay rabaan aad iyo aadaan ugu hambalyaynayaa aniga maxaa yeelay aniga siyaad baraan joogi jiray waxaan lahayn 2 warshadood oo muxuu qamriga soo saara ayaan lahayn waxaan arkaysaa nin wasiir ah oo baabuurkiisa muxuu tumaaya inta muxuu darawalka meel ka fadhiisa inta yiraahdo marka wax badan ayaan u soo joogay laakiin hadda muxuu daroogadan hadda la keenayo warshado aniga qamri hadda ma lihin waxa ka dambeeya cadowgeena ayaa ka dambeeya oo dadkan waxa diidaya muxuu Soomaaliya oo fadhigi muxuu ka kacday oo socota oo muxuu adduunyada la jaangoynaysa ayuu muxuu madaxweynaha qaranka Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayuu hirgelshay doorasho qof iyo cod ah marka taas ayaa la diidan yahay wuxuu hirgelshay qawadii muxuu ciidamadeena qaranka ayuu soo celiyay marka cadowga ayaa ka naxay markaasay waxay noo keenayaan cadowga qamri iyo kaniini iyo daroogo iyo cirbado cilmo la isku duraayo iyo xanjala ruugayo iyo cadowga marka waxaas ayay noo keenayaan ayagoo muxuu dadkeenu aysan noqonin muxuu dad fiican oo shaqaysan kara oo xisaabtami kara inaysan noqon ayagoo asagoo cadowga ka sheey asagoo ku fikiray marka aniga waxaan dhihi lahaa dalka hana loo difaaco mucaaradku aan heshiino muxuu midnimadeena iyo wadajirkeena iyo is-ogolkeena aan qaadano aan madaxweyneena ku kalsoonaano aan rasuulana ku kalsoonaano aan muxuu gudoomiye waaxeedkeena iyo gudoomiyaha gobolka kulli aan ku kalsoonaano iyo taliyayaasha aan ku kalsoonaano ee aan xumaanta iska suulino marka aniga taas ayaan ku talinayaa oo aan gacmaha isqabsanaada